السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة wanaagsan maanta waxaan ka hadlaynaa lagjaradeenii ahaa ocular anatomy and physiology maanta waxaan ka hadlaynaa structure-ka ugu dambeeya isha inner layer-ka loo yaqaano retina lagu sheegayo waa kan meeshaan xididka leh waa oo gaduudka isha qaybteeda dambe maanta ka hadlaynaa insha Allah retina waxaan ka hadlaynaa layerskeeda waxaan ka hadlaynaa blood supply-ga maaragtay waxaan ka hadlaynaa retinada waxay sameysaa shaqadeedkayga layeradeeda qaar ka mid ah ka hadlaynaa insha Allah ocular and physiology shay retina haddaan ka hormarno waa thin way jilicsan tahay waana transparent waa gudbiye iftiinka soo gala sii gudbinaya wuxuu sii gudbinaya visual pathway sii gudbinaya waana transparent ama translucent waana bulbar membrane culays ahaan waxay gaartaa 0.1 mm approximately ayay gaartaa waa qayb ka mid ah central nervous system retinahana waxaa maro ku dhawaad 2 milyan neurons ayaa maro laba layer ayay leedahay waxay leedahay internal neurosensory retina iyo internal retinal pigment ayay leedahay pigment iyo sensory ayay leedahay labadoodna space ayaa maro spacekaas waxaa loo yaqaanaa subretinal space centralka oo retinaha waxaa loo yaqaanaa waa circular waa wareeg waay oval pink waay wuxuuna gaaraa 2 ilaa 1.5 mm so waa oval waa shape wuu wareegsan yahay oo saan u wareegsan yahay oval waa blood supply blind spot centerkan waxaa loo yaqaanaa macular late waa blind spot waxaa loo yaqaanaa macular late fovea has no rhodes macnaha rhodes waxaa waa layer ka mid ah layerska hadda noo soo socda waay laakiin ma laha rhodes waxay leedahay like small dibs ayay leedahay daris waxaa jira marka 113,000 ilaa 110,000 cells ayaa jira oo leh fovea and foveolaha so marka finally-gana foveolaha iyo retina usage waxay loo adeegsadaa maculaha iyo fovea waxaa loo adeegsadaa color discrimination kalarada inay noo kala saarto ayaa loo adeegsadaa so marka total retinal diameter ahaan waxay gaartaa circular diameter-ka waxay gaartaa 42 mm blood supply 2 meel ayay ka heshaa retinal artery iyo waxay kaloo ka heshaa choroid artery retinal artery waxay ka heshaa 35 ilaa 15% waa halka choroid artery uu yahay 60 ilaa 85% oo waa percentage-ka ugu badan blood supply retina waxaa sii choroid artery-ga waxaana siiya qaybo ka mid ah photoreceptors-ka layerskeeda 10kan layer ayay leedahay waxay leedahay retinal pigment epithelium waxay leedahay photoreceptors waxaa isku dhahaa cone and rhodes aan isku dhahaa external pigment layer outer nucleus layer outer plexiform layer inner nucleus inner plexiform layer ganglion cell fiber nerve fiber layer waxay kaloo leedahay inner pigment layer 10kan layer ayay leedahay so marka retinal pigment aan ku bilaabeyna retinal pigment layer-ka pigment epithelium-ka waa single layer waa one layer waa external wuxuu extend ku yahay ora serrata ayuu ku xiran wuxuu kaga sii xiran yahay pigment-ga so marka wuxuu u muuqdaa brown oo ah wuxuuna leeyahay high melanin-taana ku badan waa dark appear waa central of the waxaana ku dahaaran macula ku dahaaran covering shaqadu qabta waxaa ka mid ah nourishment waxaa sensory-ga oo nourishment photoreceptors-ka cone and rhodes-ka siiya storage ama conversion wuxuu ku sameeyaa vitamin A deficiency layer-kana ka hadlayna shaqadiisa soo kale transparency wuxuu ku yahay nutrition of nutrient oo kala gudbiya inta retinaha soo kale daawooyinka retinaha soo gala wuxuu ku sameeyaa disconversion soo kale ability wuxuu u leeyahay transport inuu ku sameeyo waterka cone and rhodes ka hadlayna conka haddaan ka hormarno waxaa ruptured conal shape waa shape oo conal shape waa structure-kiisana waa bodies ayuu leeyahay waxaa waa photopic vision waana large wuu weyn yahay halka rhodeska uu yahay slim rhodes waa shape waa inner iyo outer laga helaa scotopic vision smallna waa wuuna yaryar yahay daris marka waxaa jira 125 milyan rhodes ayaa jira oo aad wax u badan kan yaryariska badbadan oo rhodeska halka coniskana uu yahay 6.5 so marka coniska asigana waxaa kaloo loo adeegsadaa in lagu kala saaro visual field iyo color disconversion-ka
waxaan ka hadlaynay ratiinaha iyadoo khulaasaysan anatomy physiological ahaan. waa idinkaga mahadcelinaya daawashada videogan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.